madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wafdu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada Qaahire ee dalka Masar oo maalinka bariya ka furmi doono shir u dhaxeeya madaxda midowga Afrika kaas oo looga hadlayo xaaladda dalka Suudaan oo soo bilaabatay tan iyo markii xilka laga tuuray madaxweynihii hore ee dalkaas Cumar Xasan al-Bashiir. safarka madaxweynaha waxaa ku warinaya xubno ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo ay kamid yihiin wasiiro xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale. xukuumadda Qaahire ayaa martigelinaysa shirkan iyadoo lagu casuumay hogaamiyaal ay kamid yihiin Soomaaliya, Koonfur Afrika, Rwanda iyo madax kale. intuu madaxweyne Farmaajo ku sugan yahay Masar waxa uu kulamo la qaadan doonaa madax uu kamid yahay madaxweynaha Masar Cabdilfataax al-Siisi iyo madax kale. wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga xukuumadda Soomaaliya Ambassador Axmed Ciise Cawad ayaa warbaahinta u faahfaahiyay ujeedka madaxweyne Farmaajo uu gaaray Masar iyo qodobada ugu waaweyn ee looga hadlayo shirkan. madaxweynuhu wuxuu Qaahire u yimid inuu uga qayb galo shir madaxeed kooban oo looga hadlayo arinta Suudaan. shirkaas waxaa isugu imaanaya dalalka dariska la ah Suudaan sida dalalka IGAD oo ay Soomaaliya xubinta ka tahay iyo Masar iyo Chad. waxaa Masar ayaa martigelinaysa maxaa yeelay madaxweynaha Masar waa ka sokow inuu yahay daris Suudaan Masar tahay waa sanadkan Masar waa guddoonka maaragtay Afrika. waxaa kaloo ka soo qayb galaya madaxweynihii hore ee guddoonka Afrika ee Masar bedeshay oo ah madaxweynaha Rwanda Paul Kagame iyo madaxweynaha South Africa oo ah guddoomiyaha AU-da ee sanadka soo socota ka dambeyn doona madaxweyne Siisi. marka intaasoo madaxweyne ayaa isugu imaanaya iyo dad kaleeto oo dalalkaas IGAD ka socda.